haddii aad ciridkaaga ku aragtid dhiig ama barar gaar ahaan markaad cadaysanaysid waxaan ku hayaa dawooyinka ugu fiican ee lagu daaweeyo balse intuusan muuqaalka bilaabanin oo aan kuu sharxin waxa lagu daaweeyo cirid dhiiga waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana uga faa'iidaystaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada dhamaan saaxiibayaal si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtaybo muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo xanuunka loo yaqaano yiridka ama afka caafimaadka aan u naqaano gingivitis marka ugu horeyso waa maxay yirid ama waa maxay gingivitis yiridka ama gingivitis wax loo yaqaano waa inuu infection ama caabuq uu ku dhaco ciridka marka qofku wuxuu isku arki karaa inuu ciridkiisa dhiigo qofka inuu ciridkiisa bararo qofka inuu neeftiisa soo urto waxyaabaas badan ayuu isku arki karaa cirid dhiiga waxyaabo badan ayaa sababi karo intaan u gudbin waxyaabaha sababo marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego calaamadaha aad isku arki kartid markaad leedahay xanuunka noocan ah calaamadaha aad isku arki kartid markaad leedahay xanuunka noocan ah waxaa ka mid ah number 1 ciridkaaga oo gaduuta ama sidoo kale ciridkaaga oo casaada sidoo kale waxaad isku arki kartaa number 2 ciridkaaga oo si fudud ku dhiiga waxa ula jeedaa tusaale ahaan markaad cadaysanaysid inuu ciridkaaga si fudud dhiiga ugu imaado ama fartaada markaad ku taabatid ama sidoo kale carabkaaga markaad ku taabatid inuu ciridkaaga dhiig badan uu ka yimaado sidoo kale waxaad isku arki kartaa number 3 ciridkaaga oo barara ama swelling inuu sameeyo oo barar zaid ah oo ciridkaaga ka dareentid sidoo kale ugu dambeyn calaamada afraad ee isku arki kartid waa inay neeftaada soo urtaa oo aad dareentid af ur zaid ah marka haddii aad xanuunka noocan aad leedahay afartan calaamadood iyo waxyaabo kale oo ka badan baa isku arki kartaa waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keena xanuunka loo yaqaano yiridka waxyaabaha sababi karo xanuunkan way badan yihiin waxa ugu horeeya number 1 nadaafad darrada ilkaha waxa ula jeedaa dadka aan ilkahooda cadaysanin ama guud ahaanba nadaafada ilkahooda hooseyso markii nadaafada ilkahada hooseyso ama si fiican aadan u cadaysanin ilkahada waxa ku dhalanayo wax loo yaqaano huuro ama afka caafimaadka waxaan u naqaano plaque huuradaas muuqaalka soo socda ayaan si faahfaahsan ku sharxi doonaa balse wax kale ma ahan waa inay bacteria iyo cunto ay ku aruurto inta u dhaxeyso ilkahaaga iyo ciridkaaga marka waxa dhaceyso inay bacteriadii gudaha u gasho ciridka marka kadibna ay sababto infection ama caabuqaasna wuxuu sababi doonaa inuu ciridkaaga bararo inuu ciridkaaga dhiig badan uu ka yimaado inay neeftaadu ay soo urto iyo sidoo kale inuu si fudud ciridkaaga ku dhiigo sidoo kale number 2 waxyaabaha sababi kara xanuunka noocan ah waxa ka mid ah wax loo yaqaano cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta cuntooyinkaas gaar ahaan shukulaatada ice creamka sokorta iyo guud ahaanba cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta cuntooyinkaas haddii aad u isticmaashid waxaa badanayo jaaniska ama fursadda ay bacteria afkaada ay ku badan lahayd ayna ku sabab lahayd caabuqa ciridka ku dhaco sidoo kale waxyaabaha kale sababi kara waxa ka mid ah number 3 uurka gabdhaha markay uurka qaadaan waxa isbedel badan ku imaanayo jirkooda gaar ahaan waxa isbedel ku imaanayo dheecaanada jirkooda ama hormoniskooda marka qaab noocaasna way ku keeni kartaa xanuunka loo yaqaano yiridka ama wax loo yaqaano gingivitis-ka sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni karo ama sababi kara xanuunka noocan ah waxa ka mid ah number 4 wax loo yaqaano malnutrition oo ah nafaqo darro jirkaada markay ku yaraadaan fitamiinada qaar gaar ahaan fitamiinka loo yaqaano vitamin C jirkaada waxa ku dhacayo ama afkaaga waxa ku dhacaya caabuqan loo yaqaano yiridka ama gingivitis-ka haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa haddii aan xanuunkan iska daweey waayo oo aan dhakhtar tagi waayo muxuu igu sababi karaa ama muxuu keeni karaa waxyaabaha xanuunkan haddii aad iska daweey wayso uu kugu sababi karo waxa ka mid ah number 2 wax loo yaqaano gingival recession oo ah inuu ciridkaaga hoos u durqo ciridkaaga markuu hoos u durqana dhibaato aad u badan uu keeni kara waad wada garanaysaan dhibaatooyinka ugu badan ciridkaaga markuu hoos u durqo uu keeni karo waxa ka mid ah inay qotada iligaaga ay soo baxdo deeta markii ugu dambeysana ay sababto inuu gabi ahaanba iligaaga uu soo dhaco run ahaantiina waa dhibaato aad u weyn sidoo kale haddii xanuunkan gingivitis-ka ama caabuqa ciridka ku dhaca iska daweey wayso wuxuu kugu sababi karaa number 2 wax loo yaqaano halitosis oo ah inay neeftaadu soo urto ama guud ahaanba af ur marka waxa kugu la talinayaa in xanuunkan iska daweysid qaabka loo daaweeyo aniga ayaa ku sharxi doona waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah
sidee loo daaweeyaa xanuunka loo yaqaano gingivitis-ka ama xanuunka loo yaqaano yiridka. Si aad iskaga daaweysid cirid dhiigga waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid number 1 dawada lagu cadaysto ilkaha ee loo yaqaano Parodontax. run ahaantii dawadan waxay kamid tahay dawooyinka ugu fiican ee lagu daaweeyo cirid dhiigga. dawadan qaabkii u shaqeynaysa ayaa ah waxay ka hortagaysaa ciridkaaga inuu dhiig badan uu keeno, isla markaana waxay yareynaysaa bararka ama caabuqa ku sameysma ciridka. sidoo kale waxaa kugula talo lahaa inaad isticmaashid dawada lagu luqluqdo ilkaha ee loo yaqaano mouthwash. noocan ayaa kugula talo lahaa inaad isticmaashid. xagga shaashada ayaan kuu soo saari doonaa noocyo aad u badan, noocyo badanna way leedahay run ahaantii. marka labadan haddii aad isticmaashid oo wax isbedel ah dareemi waysid, waxaa kugula talo lahaa number 3 inaad booqatid dhakhtar ilkood ama dhakhtar dentist ah. dhakhtarka markaad booqatid wuxuu kuu sameyn doonaa nooc ka mid ah ilka dhaqista oo loo yaqaano scaling. procedure-kan sida shaashada ugu jeedidbo ilka dhaqista waxaa loo sameeyaa ama waxaa la isticmaalaa mashiinka loo yaqaano ultrasonic scaler. mashiinkan waxaa loogu talagalay inuu nadiifiyo ama inuu gabi ahaanba meesha ka saaro dhagaxaanta ku sameysma ilkaha. sidoo kale dhakhtarka markuu ilkahaaga kuu dhaqo uu isticmaalo habka aan hadda kuu sharxay, wuxuu kuu qori doonaa dawooyin qalajiyaal ah ama wax loo yaqaano antibiotics. dawooyinka qalajiyaasha ah waxaa fiican inuu dhakhtar kuu qoro oo aadan meelaha farmasiyada iyo meelaha gaarka aadan ka soo iibsanin. marka guud ahaan waxaa kugula talo lahay in 4taas qodob aad sameysid. marka koowaad inaad gurigaaga ku isticmaashid dawada cadayga ee Parodontax-ka iyo dawada ilkaha lagu luqluqdo ee mouthwash-ka. labadaas haddii aad wax isbedel ah ku dareemi waysid, inaad booqatid dhakhtar ilkood ama wax loo yaqaano dentist si uu u hubiyo ilkahaaga kaaga nadiifiyo dhagaxaanta ku sameysma ilkaha. waxaan rajeynayaa maanta wixii ka dambeeyo inaad iska daweey kartid cirid xanuunka, cirid dhiigga iyo waxyaabaha kale ee la xiriiraba. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan. si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah, fadlan ku soo biir YouTube channel-kayga oo subscribe saar. si la mid ah haddii aad iga daawanaysid Facebook page-kayga, fadlan follow saar lana wadaag saaxiibadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.